السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaad asxaabay channelkeena fursad kaab. Muuqaalkan gaaban waxaan ku sharxi doonaa sida ugu fudud ee aad ku iibsan kartid domain name iyo hosting. Haddii aad doonaysid inaad website samaystid, ugu horreyn waxaad u baahan tahay domain name iyo hosting. Waxaa jira shirkado badan oo aad ka iibsan kartid domain name iyo hosting. Haddii aad doonaysid domain name iyo hosting oo hal sano iyo wax ka badan ah, shirkadda ugu raqiisan uguna fiican oo aad ka iibsan kartid waa Bluehost, sidaan anigu isleeyahay. waxaadna ogaataa halka sano oo aad gadanaysid lacagtiisa hal mar ayaa sugaysaa Bluehost, waana $63. laakiin haddii aad u baahan tahay domain name iyo hosting oo bil ah oo aad rabtid inaad bil u bixisid, shirkadda ugu raqiisan waa DreamHost, waana shirkadda sida loogu iibsadaa muuqaalkan ku sharxi doono. sidoo kale sida Bluehost loogu iibsado haddii aad u baahan tahay, maqaal yar ayaan ka diyaarinay, linkiga description-ka muuqaalka ayaad ka helaysaa. qoraalkaas akhriso. aanu guda galno muuqaalkeena. ugu horreyn waxaad booqataa website-ka DreamHost, linkiga description-ka muuqaalka ayaad ka heli kartaa, ama dreamhost.com qor, sidaasna waa ku booqan kartaa. marka koowaad waxaa ku dhufataa meesha ku qoran tahay WordPress hosting. kadib waxaa ku soo baxayo page-kan, hoos u bax $1 haddaad rabtid hosting $1 dooro, laakiin monthly ayaa sharxaynaa, monthly ayaa dooranaya. labadan balaan midka $4 waa hal website haddii aad rabtid. website badan haddii aad rabtidna waxaad doorataa midka $8. hal website ayaan rabaa sign up taabo midka $4. kadib waxaa ku soo baxay 3 option. domain inaad gadaal ka dooratid, optionka labaad oo ah inaad domain cusub samaysid, optionka saddexaad oo ah haddii aad domain hore u lahayd. aniga hadda mid cusub ayaa sameynaya, register new domain meesha ku qoran tahay taabo. kadib waxaa gelisaa domain name-kaaga, magaciisa geli. haddii aan la qaadan oo horey aan loo qaadan kaa yeelayaa, laakiin haddii kale wuu kaa diidayaa. domain-kaaga magaciisa geli. kadib waxaad taabataa meesha ku qoran tahay search. kadib domain-ka hadduu ku soo baxo, haddii aan la qaadan, aadkaas taabo meesha ku qoran tahay, click ku sii. kadib waxaa ku soo baxaya page-ka lacag bixinta. meeshan waxay gelisaa information kaarka, name-ka waa kaarka magaciisa. meesha ku xigto waa kaar numberka, mastercard-kaaga numberka dheerka geli oo ku qoran. meesha saddexaad waa date-ka uu dhacayo. meesha saddexaadna waa CVV-ga. meesha afraad. kadib waxaa gelisaa address-kaaga. waddanka waxaad doorataa Soomaaliya ama waddanka aad joogtid. meesha state ay ku qoran tahay waxay gelisaa gobolka Banaadir ama gobolka aad joogtid. city waa magaalada aad joogtid. Muqdisho camal iska geli. postal code-ka meesha aad joogtid. Muqdisho hadda waa 50 waa umaleynaa inay tahay. meeshaas waxay gelisaa qoraalka meesha ku qoran. kadib hoos u bax, account-kaaga ayaad sameynaysaa. meeshaas waxay gelisaa gmail-ka aad rabtid. first name magacaaga hore geli. last name-ka meeshaasna buuxi. sidoo kalena phone number-kaaga geli. meeshaan markaa imaatid, meeshaas $3 ee tigta saaran tahay. haddii aad lacagta u haystid waa u daysan kartaa, haddii kalena lacagta ayaa kugu badanaysa, tigta iskaga qaad. kadib hoos u bax, meesha ay ku qoran tahay submit order, click ku sii. kadib waxaa kuu soo baxaya meeshii aad password ka samaysan lahayd. password cusub gasho. continue to your control panel taabo. kadibna sidaasna waxaa ku gadatay domain name iyo hosting. waxa dhiman waxaa waaye inaad WordPress-ka soo install garaysid, website-kaaga ku install garaysid. waxaad tagtaa meesha ku qoran tahay domains, one click install meesha ku qoran tahay sii taabo. kadib waxaad taabataa learn more and install meesha ku qoran tahay. domain name-kaaga dooro.
kadib waxaad taabataa install for me now. si toos ah asaga kugu soo dejin doono. Email ayuuna kugu dirayaa gmail-kaaga aad markii hore gelisay. Step-ka xiga waa inaad SSL certificate inaad ku dartid. meesha sirjiga waxaad ku qortaa SSL certificate dooro. meesha settingska ay ku qoran tahay marka intaada ku darin ad ayaa meesha ku qoran adkaas taawo kadibna meesha firigiisii dooro. dib waxaad tagtaa gmail-kaaga bashqadaas success installing WordPress ay ku qoran tahay fur. kadib linkaas ugu horeeyo click ku sii. waxaa gashataa passwordkaaga cusub. reset meesha ku qoran tahay password taawo. kadib login-kaas sii taawo. passwordkii aad hadda gashatay meesha geli. login dheh. kadib qaladkaas kore taawo. sidaas ayuu kugu samaysmay website WordPress ah. intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. ha ilaawin hadduu muuqaalku ku qanciyay inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena. waa mahadsan tahay.